waxay ahaayeen saddex wiil oo dhalinyaro oo saaxiiba waxa ay lahaan jireen dameeradaas oo alaabta ay ku qaadi jireen ganacsatada u qaadi jireen kadibna suuqyada ugu geyn jireen. waxaa dhacday habeenada ka mid ah ayagoo daalan oo meel fadhiyo ayaa mid ka mid ah oo la oran jiray maxamed bin abi caamir yiraahday anigu waxaan jeclahay in aan noqdo khaliifka islaamka amiirulmu'miniin. saaxiibiis mid ka mid ayaa yiri waa macquul, midkii kalena waxa uu yiraahday wax macquul ah maahan. maxamed bin abi caamir oo warka sii wata ayaa yiraahday haddii aan noqdo khaliifka islaamka maxaad rajaynaysiin? saaxiibkiis ayaa yiraahday anigu waxaan jeclaan lahaa in aad isiisid beer aad u weyn, beertaas oo ay dhex joogaan fardo, lacag 100,000 oo diinaar oo dahabna ay igu darto. maxamed bin caamir kii kale ayuu fiirshay oo yiraahday adiguna maxaad tamaninaysaa jeclaan lahayd haddaan noqdo? kii kale waxa uu yiraahday wax macquula ma ahan, adiga inaad amiirulmu'miniin noqotid waxay la mid tahay dhulka oo roob ka yimaado cirkana u da'o. haddii ay dhacdo in aad noqotid amiirulmu'miniin waxaad samaysaa dameer isaar oo gadaal isaar, wejigaygana dhuxule madow mari, dadkana waxaa ku dhahdaa ninkan waa masiixi dajaal, qof alla qofkii la kulmana waan xiraya, dadka ila kulmo ama ila macaamilana xabsiga gey. doodii habeenkii marka ay dheeraatay waa la kala seexday. markii la seexday maxamed bin caamir salaad subax markii uu tukaday waagii waxa uu ku fakeray sidii uu heerkii uu xalay sheegtay oo ku gaari lahaa oo amiirulmu'miniin ah. subaxdii waxa uu qaaday tillaabadiisii u horeysay oo waxa uu gaday dameerkiisii, waxaanu iska diiwaangeliyey ciidamadii. waxa uu noqday askari aad u firfircoon ilaa uu heer ka noqdo ciidamada andalus ee umawiyiintii taliyaha guud. kadib waxaa dhintay amiirkii mu'miniintii waxaana ka dhaxlay arrintii wiilkiisa hishaam oo 10 sano jiray dardaan uga tagay. wiilashii dardaaranka raggii looga tagay waxa ay ka baqeen wiilkan haddii xilka loo dhiibo in uu xilka baaba'o, kadibna waxay ku fakareen nin kale in ay u magacaabaan. waxaana joogay maxamed bin caamir oo ahaa nin aad u firfircoon, dagaaladana ku adag, guulna soo hayo. kadibna asaga ayay waxay u doorteen u magacaabeen amiirulmu'miniin. maalin maalmaha ka mid ah markii ay kasoo wareegtay maalintii uu gaday dameerkiisii 30 sano markuu xilka uu qabtay ayaa waxa uu soo xasuustay saaxiibadiis, waxaana ciidamadii u sheegay in ay u keenaan labadii dameeraalo ay saaxiibada ahaayeen. markay la kulmeen ayuu waxa uu ku yiraahday ma i taqaaniin? ayakana waxay dhaheen haa waa ku naqaanaa, waxaan ka baqaynaa adiga in aadna aqoon weysid oo na kasi weysid. markaas ayuu wuxuu ku yiraahday maya, anigu waxaad tihiin saaxiibaday, mana idin iloobayo oo waa idin xasuustaa sheekadii dhex martay asaga iyo saaxiibadii 30 sano ka hor. ayuu waxa uga sheekeeyey raggii waaweynaa ee majliska fadhiyay. kadibna waxa uu weydiiyey midkii koowaad adigu marka aan noqdo amiirulmu'miniin maxaa iga codsatay in aan ku sameeyo oon ku siiyo? wuxuu yiri saaxiibkiis waxaa codsaday beer aad u weyn iyo fardo iyo lacag 100,000 oo diinaar ah. wuxuu yiraahday waxii aad sheegatay waad leedahay maadaama aadan wax been ah aadan ku darsan. kii kale ayuu u jeestay oo uu yiraahday adiguna maxaa iga codsatay marka aan noqdo amiirulmu'miniin? waxa uu yiraahday aniga waxaan ka codsaday dameer inaad ii saarto oo gadaal ii saarto oo dadkana dhaadid ninkan waa masiixi dajaal, qofkii la kulmana hal la xiro. kadib amiirkii ayaa yiraahday ha loo yeelo sida uu sheegtay ilaa uu ogaado qadarta ilaahay in ay qofna cisayn karto qofna duleyn karto ilaa uu ka aamino. hal la wareejiyo hana la yeelo ayuu yiraahday. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.